madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre ayaa markiiba waxa uu soo gaaray degmadaasi Hargeysa iyada oo ay hoos socdaan ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee traafiga la yiraahdo iyo madaxda gobolkaasi oo iyaguna la socday isla markaasina tilmaamo ka bixinaya sida dhulku uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre waxa halkaasi ku soo dhaweeyay madaxda degmadaasi ee Hargeysa iyada oo halkaasi ay ku sugayeen ururada bulshada ciidamada qalabka sida waxaan halkaasi ubax aad u qurxoon iyagoo qorto galay ubaxa kacaanka ee degmadaasi Hargeysa oo halkaasi saxiisa iyo kalgacal leh madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jaalle Siyaad u soo dhaweeyay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre intii uu joogay Hargeysa waxa uu ka furay garoon weyn oo caalami ah oo diyaaradaha ugu waaweyn adduunku ay ku degaan kaasi oo lacagtiisa ay ku baxayso 1 bilyan iyo 20 milyan oo shilinka Soomaaliga magaca wasaaradda awlaadu inaan maanta halkan ugu soo dhaweyno inaad bismilayso bilowgii garoonka cusub waxaan jeclaan lahaa garoonka cusub garoon hore ma jiro garoonkii hore waa baaba'ay wax lagu degi karana maa waa ogtiin garoon cusub oo caalami ah oo diyaaradaha adduunka kuwa ugu waaweyn ku degi karaan gobolka waqooyi galbeed magaala madaxdeedii inaan ku soo dhaweeya sharafiya iyadoo la fulinayo awaamirta ayaa saaka halkan waxaa diyaar u ah wasaaradda howlaha guud iyo wakaaladdeeda inay bilaabaan hawsha dhismaha cusub ee garoonka Hargeysa Jaalle madaxweyne iyo diiranaantii ama firfircoonaantii argidii iyo dhaqanka u ahaydeen oo ay nooga muuqatay tabayay run ahayd shirka halkaa ku shirtanahay maaha mid beenbeen yaado waxa weeye mid aynu ku dhisanayno ayraboor caalami oo aynu doonayno dayuuradaha kuwa ugu waaweyn inay ku soo degaan oo dibdib ama socod xawli dheer xawli adag حول الليل فرضا مركع كريم من نوم يبدأ يبعيك مكان أي رجال القدر هذا مركع حتى برياء النورس وعبا نمي المكان بدروا واحد بريمة يا مكان بدروا هنا بقرب بنا الله وانا عمي وطول